Assalaamu calaykum waadi salaam saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan waa saaxiibkiin Siciid Xaga iyo mar kale oo caawa idiin wada sheeko aan horay u ballan qaaday sheekadan waxaan jecelahay inaad dhegaysato sheekadan waxay tilmaamaysaa macnaha sheekada ama dulucda sheekada waxa weeyaan sida qofka looga rabo in uu fakaro marka xaalad ay qabsato xitaa iyadoo ay ballamo jireen waa hagaag sheekadan magaceedu waxaa la yiraahdaa war taladiisbaayow maxaa talo u yeelan weyday taladiisbaayow maxaa talo u yeelan weyday ama u yeelan weyse sheekada sidanay ku bilaabmaysaa reer ayaa waxay deganaayeen meel miyi ah ama baadiye ah ayaa reero badana deganaa sida caadiga marka reer miyiga waxaa lagu yaqaanaa waa dad safra oo raaca naqa raaca ama roobka marka uu meel ka da'o inta u sahmiya dabadeetana u guura reerkan hadba meeshii daaq iyo naq iyo biyo leh ayay reer guuraaga u guuraan waa wax iska caadiya taas reere marka meel wada yaalay ama meel wada deganaa ayaa oday ka mid ah reerkii wuxuu dareemay kuleyl badan dhulkii in cooskii iyo daaqii uu yaraaday biyihii ay yaraadeen markaa roob meel ka da'ay ayuu u sahan tegay intuuna bixin marka uusan aadin meeshii ayuu wiilkii reerkiisa u weynaa ayuu la dardaarmay wuxuu ku yidhi aabbow birrito haddii waqtigaas la gaaro xilligaa iyo xilligaa oo aan maqanahay waxaad samaysaa reerka soo rar markaad soo rarto meel heblaaya marka aad joogto ku fur reerka halkaas ku fur oo nasisii wanka hebel la yiraa ilaa xoolaha reer miyiga waa xoolihiis qof walba u yaqaanaa wuxuu yidhi wanka hebel la yiraana reerka u qal markaa kadib markay waxaas cunaan oo ay nastaan kadib soo rar meel heblaaya reerka keen anna waa sii oodi doonaa oo reerkii ayaan usii diyaari doonaa meeshii ay degi lahaayeen aqbal iyo guddoon wiilkii iyo aabbihii sidaas ayay ku ballameen aabbihiina waa socdaalay wuu baxay markii ay ka dhiman tahay xilligii aabbihii uu la ballamay oo ay ka dhiman tahay saacad ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisii u hoortay meeshii oo reerka deganaa roob ayaa si fiican ugu da'ay balliyadii way buuxsameen habbi maasha allah reerihii sahanka u maqnaa iyo kuwii rabay inay u sahmiyaan iyo kuwii sii guurayba laakiin inta badan reerihii way joogeen roobkii markuu dhammaaday uu istaagay ayuu wiilkii wuxuu bilaabay inuu reerkii furo waxaa la yaabay marka reerihii kale ee ay jaarka ahaayeen ama ay dariska ahaayeen waa loo yimid waxaa la yidhi inay hebelow maxaad reerka u furaysaa wuxuu yidhi anigoo aabbahay ayaan ballan ka qaaday ballantaas ayaanan oofinaya waxaa lagu yidhi aabbahaa sababtu waxay ahayd uu sahanka u tegay abaar meeshan haysatay iyo kulayl marka ilaahay nimcadii wuu noo keenay balliyadu way buuxaan dhibaata ma jirto reerka ha rarin adeerow aan kuu ducaynay ha rarin wuu diiday wuxuu yidhi waa inaan fuliyaa ballantii aabbahay hadal haddii lagu kari waaye laga tegi ninkii reerkii raryey markuu rarayay uu dhex sii waday ayaa arigii wan ka mid ah uu jabay macnaha sheekada uu ku jabo way dheer tahay laakiin alcamuum waxaan rabaa meeshaan u socdo inaan yacni aan keliya aan abbaaro wan ayaa ka jabay marka bis wankii wuxuu fuuliyey ratiga caruurta la saaro kolleyta dhammaan soomaalidu waa reer guuraa xitaa qofka aan miyiga tegin ama aan ku dhaqmin baadiyaha wuu maqlay marar badan in laga sheekeynayo marka awrka la rarayo
awrka hayinka ah ee reerka lagu raro awrtaas ayaa waxa la saaraa waxaraha iyo ilmaha yaryar ayaa la saaraa gurada ama xagga sare ee lagu raray marka wankii jabayna halkaas ku raray u socdo u socdo u socdo u socdo ka baxi meeshii aabihii u kula ballamay ayuu tegay hadda meeshaas dhibic rooba kuma diin biqudrati illaah xabad rooba ama dhibic rooba kuma dhicin dhulka waa umas waa kulayl kaliisha sidii u socod wad yaabaysaa halkiibuu reerka ku furay markuu reerka ku furay si ay u nastaan ayaa waxa dhacday wankii uu aabihii kula ballamay oo yiri wankaas reerka u qal ayuu u gowracay hilibkii la cunay reerkii adiga uu waday la dareeg alxamdulillaah kadibna reerku dib u raray oo ka jaqaafiyey waxay socdaanba wuxuu u tagay aabihii meesha uu kula ballamay oo oodii reerka uu u diyaariyay ayuu u tagay aabiyaa soo dhaweeyay reerkiyaa meesha la furay marka meeshaasi yacni roob yar ayaa ku da-ay naqeedu ma badna reero badan way u soo guureen laakiin meesha aabbihii uu deganaa way dhaantay laakiin aad buu maaragtay uu naqeedu u yaraa ii waran uu yiri marka wiilkaygiiow ii waran xaaladii ka waran reerihii aad ka soo tagtay ka waran waddada maxaad ku soo aragtay marka waa inuu war iyo wacaal wuxuu hayo waa inuu gudbiyo wuxuu yiri horta reerkii aabbo markaa muddo intaa ka soo maqnayd saacadood oo ay saacad ka dhiman tahay xilligii ballanta ayuu ilaahay 4 qablo ka keenay roob haye aabbihii waa yaabi oo ma roobaa idiin daa roob ka muuqdo waa arkaye waxaan islahaa malaha meeshii ma ah markaasuu meesha inuu ku da-ay oo balligii hebel iyo balligii hebel iyo keeni iyo kii hebel iyo wixii dhan u tiriyay yeb haye intuu da-aya roobka calaamadaha jira markuu roobka do-o ee reer baadiyaha ama reer miyigu ay ku cabiraan roobkoo kale iyo xusulka faraha magacyuu leeyahay hadda uma jeedna taas marka wuxuu u tilmaamay inuu ilaa xusul dhulka roob galay inuu ahaa marka haye wuu yaabay odaygii wuxuu yidhi haye kadibna wankii ma u qashay markaasuu yidhi haa wankii aad igula ballantayna waan u qalay oo kan jabayna muxuu ah wuxuu yidhi markii lasoo rareeyey markii lasoo guurayey ayuu jabay wankanna haye markaasuu aabbihii madaxa qabsaday waatan marka macal shaahidka ama meesha aan u jeedo sheekado waatan wuxuu yidhi war nin yahow maxaa tala u yeelan weyday oo markii meesha ileen meesha aan u soo soconnay sababtu waxay idin roobki da-ay darteed adna hadduu ilaahay meesheenii nagu siiyo roob waa nimce maxaa tala u yeelan weyday oo reerka aad yacni meesha aad ugu dhaafi weyday ani markan haddaan idin waayo waa idin soo dooni lahaa markaan arko nimcadaa rabbina waan ku qanci lahaa kow maadan samayn buu yidhi 2 reerkii waxaad ku furtay dhul kulayla oo umasa oo kaliisho ay badan tahay cadceed ay halkan joogto oo rafaad ah ood og tahay intaad ka soo bixisay barwaaqadii iyo roobkii ayada halkaasi keentay xitaa maskaxdaadu ama taladaadu ma siin weyday inaad go-aan gaarto ood markaad isku aragto meesha aan kula yacni ballantu ahayd oon kugula ballamay markaad aragtay xitaa maxaad go-aan intaad u qaadato u celin weyday oo meeshii naqa aad ugu celin weyday taana maad samayn waay wuxuu yidhi wankii aan reerka u qalku yidhi hadduu wan kala jabay oo ilaahay amarkii jabkaas uu ku yimid maxaad intan kan u yacni iskaga dayn weyday midkan soconaya fiican ee aan jabnayn ee kan jaban aad reerkii ugu qali weysa wuxuu yidhi aabbo anigu ballantan ilaalinayay reerka soo rar ballantaadu ahayd meeshaa keen ballantaadu ahayd wanka u qal ballantaada ahayd marka anigu ballanti
ayaan ilaalinay. odayga waxaa laga hayaa marka kelmaddaas oo aan adigo walaal daawanay videogan aan kuu sheegaya oo ah sheekada waa sheeko caan oo Soomaalidu yani ay wada og tahay, laakiin waa sheeko dhiirigelin ah. aabihii wuxuu yidhi kelmaddan u fiirso, kelmaddan waa kelmaddan u jeedo, waa halka aan sheekada dhanba usoo socdo. war wuxuu yidhi war taladii ba'yow maxaa tala u yeelan weyde, taladii ba'yow maxaa tala u yeelan weyde. yacni sheekadan waxay ku saabsan tahay marka xaalad ay jirto oo ballamo ay jiraan oo yacni wixii wax ka duwan ay dhacaan, waxaa la qaataa hadba tan fudud. diinta islaamku shareecada waxay tilmaamaysaa haddii laba dhib ay ku wada qabsadaan oy lagaba maarmaan noqoto labadaa dhib inaad wajahdo, waxaa la qaataa tan fudud ayaa la qaataa. labadu waa dhibaato, labadu waa dembi, laakiin waad ku qasban tahay. tee la qaadanaya ta fudud. marka qofku waxaa laga rabaa marka marxalad ay timaado lagu ogeyn in uu go'aan qaadan karo, uu tala yeelan karo, isaga oo markaas ku cabiraya marxaladihii wixii jiray. hadda ninkaas wiilkaasi reerka wuxuu ka soo waday meeshii roobka ku da'o naqa iyo biyaha ahaa, abaaruu dejiyey, wan jaban isagoo joogo wan kala qalay, meeshii aabihii u kula ballamoo geeyo wax fiican lahayn. marka ballanti uu ilaalinayay maxay soo kordhisay sheekadan. marka waxaa la yidhaha war taladii ba'yow maxaa tala u yeelan weyde. marka dad badan oo awooda hadda inay wax qabtaan ama ay sameeyaan ayaa iska fadhiya, iska fadhiya. marka tala yeelo hadday kula gudboon tahay. sabab haddaad wax baranayso ood rabto inaad wax barato, hadday kula gudboon tahay baro, waqti weli kaama tegin. haddaad weyn tahay ood qof weyn tahay oo maskaxdaada ay joogto, still weli wax waad baran kartaa. haddaad yar tahay weli waxaad baran kartaa xaggii waxbarashada. haddaad doonayso inaad meel tagto, tag. inaad aag bedelo, war wax samee. haddii kale taladii ba'yow maxaa tala u yeelan weyday ayay sheekadaada noqon doontaa. sheekadan waa la fahmay ujeedadu waxa ay tahay iyo waxa aan ula jeedo. aad baad u mahadsantihiin. sheekadan waa sheeko caana oo dadka Soomaaliyeed meelo badan ay yaqaanaan, laga yaabo in siyaabo kala duwan xitaa ay ku soo gaartay habka sheegista, laakiin aniga habka aan u maqlay sheekadan waa sidan. aad baa u mahadsantihiin. videoga hala share gareeyo, saaxiibadan hala la wadaago. waxaan inaan isu gudbino oo aan is abaabulno oo aan yani isku dhiirigelino, waxaan meesha ugu wada joogno. thank you very much all of you. Assalamu alaikum warahmatullah.